Laura ayaa si caro leh u weerartay Emma iyadoo kubad ku tuurtay taasoo keentay inay dhulka ku dhacdo iyadoo xanuun qabta laakiin waxa wejiga Laura ka muuqatay dhoola cadeen qanacsanaan ah. Kadib waxay la socotay asxaabteeda waxayna bilowday inay gacanta Emma ku dhufato. Markii ay aragtay tan nin gadaashooda taagnaa ayaa u sheegay Laura inay istaagto laakiin gebi ahaanba way iska indha tirtay. Haweeney u dhow ayaa soo jeedisay inay soo geliso muuqaal muujinaya waxa dhacaya. Maqaalkaas madaxoodu wuxuu ka soo dhaqaaqay gadaashiisa uu dhoola cadeeyay wuxuuna ku dhuftay wejiga. Kadib wuxuu amray ilaaladiisa inay dhinac u riixaan. Ilaalada isla markiiba way qabteen oo way ka haysteen. Isla markii ay baxeen Alex ayaa u tagay Emma wuxuu qabtay timaha wuxuuna ku qasbay inay istaagto. Daqiiqada kadib wuxuu ku jiiday qol wuxuuna ku tuuray dhulka. Laura ayaa markaa tiri waxaad ku samayn kartaa wax kasta oo aad rabto maqashay taas Alex ayaa dhoola cadeeyay farxad. Emma si lama filaan ah ayuu isaga riixay oo ku qaylisay idaa haddii kale waad ka qoomamayn doontaa laakiin Laura waxay u sheegtay Alex inuu ku dhufto. Isla markiiba wuxuu Emma ku dhuftay wejiga. Emma way dhoola cadeysay oo waxay tiri waxaad ku bixin doontaa qiimo culustan iyada oo caraysan Laura waxay qaadatay ul oo madaxa ayay Emma ku dhufatay. Emma way dhacday. Dabada ayay ku dhacday iyadoo dhiig ka soo daadanayo madaxeeda. Isla markaas taleefanka Emma ayaa bilaabay inuu soo dhaco. Luna ayaa qaadatay oo u dhiibtay Laura. Kadib markii ay ka jawaabtay wicitaanka Laura waxay tiri waxaan dilaynaa xaaskaaga. Haddii aad badbaadin karto kaalay oo isku day dabadeed way xirtay. Jack ayaa argagaxay kadib markii uu maqlay warka wuxuuna ku amray darawalkiisii inuu la socdo goobta Emma. Isla markii ay heleen waxay u ordeen dhanka kale Alex wuxuu dul fadhiistay Emma wuxuuna bilaabay inuu dhibaateeyo. Emma aad bay u daciiftay oo aysan dib ula dagaalami karin. Si lama filaan ah Laura waxay heshay sanduuqa taasoo keentay in Alex uu ka tago. Gudaha sanduuqa waxaa ku jiray warqad jacayl ah oo loo qoray Emma. Iyada oo quus taagan Emma ayaa qabatay lugta Laura oo ka baryay inaysan taaban laakiin Laura way iska indha tirtay oo waxay bilowday inay akhrido. Warqadda waxaa ku qornaa Emma gacaliye aad baan ku jeclahay laakiin weligay ma aanan helin geesinimo aan kuugu sheego sababtoo ah waxaan ka baqay inaad iga tagto oo jacaylkeenu uusan dhamaanayn. Waxa aan ugu jeclahay adiga ayaa ah in mar kasta oo aan dhaawacmo aad baad u tahay qofka ugu horeeya ee ilaaliya. Waan ku jeclahay Emma kadib markay akhriday Laura waxay ag fadhiisatay Emma waxayna tiri hadda waan kala jeexjeexayaa Emma ayaa xanaaqday muusikada laakiin sawirka Jack ayaa dhulka ku dhacay. Laura ayaa soo qaaday oo ku burburisay agteeda. Indhaha Emma waxaa ka buuxay ilmo iyo caro. Daqiiqada kadib dhowr baabuur ayaa dibadda u soo baxay. Jack ayaa la baxay ilaaladiisa oo gudaha ayay ku carartay. Isla mar ahaantaana Sophia ayaa soo gashay iyadoo wadata maqas iyadoo leh waxay dili doontaa Emma. Laura waxay ku qasabtay Emma inay kursi ku fadhiisato oo ay ku xidho xadhko. Dabadeed waxay kor u kacday oo xariggii laambada ka jartay taasoo keentay in muusigu uu ku dhaco dhanka Emma. Emma way cabsanayd. Isla markaas Jack ayaa ka soo booday. Albaabka laakiin markii uu arkay muuqaalka hortiisa yaal aad buu u naxay.